dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in ay diidan tahay in mar kale dib loo dhigo dhageysiga kiiska dacwada badda ee hortaalla maxkamadda cadaaladda dunida ee ICJ. ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo madax ka ah wafdiga dowladda Soomaaliya ay u dirtay maxkamadda Hague waxa uu sheegay in dowladda ay aaminsan tahay maxkamadda caalamiga isla markaana si cadaalad ah loogu garnoqi doono kiiska badda oo ay muranka gelisay dowladda Kenya. ra'iisul ku-xigeenka waxa uu sheegay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay gudbisay qoraalkeeda diidmada ah isla markaana Kenya ay dhankeeda soo gudbisay in muddo 12 bilood dib loo dhigo kiiskaasi. waxaa noo yeedhay maxkamadda cadaaladda adduunka si aan uga jawaabno codsi ay soo gudbisatay dowladda Kenya oo ku saabsan waatii ay ogeedeen 9 Sebtembar ayaanu u ballansanayn iyadoo aanu istiyaarinay oo aan maxkamadda u soo diyaar garownay looyaradeennii iyo dhammaanteenba ayaa waxa dhacday in maxkamaddu go'aan ay soo saartay maadaama Kenya ay codsatay inaanay diyaar ahayn waqtiga looyaradeediina ay kala dirtay sababayada u gaar ah awgeed. marka hadda waa tii loo ballamiyay 4 bisha annaga wali go'aanka iyagu waxa uu yahay taageernahayna dib u dhigaas maxkamaddu adduunka iyada go'aanka iska lahay dib u dhigtay oo 4 bisha ah ayaa go'aanka iyaga difaaca iyaga iyo ku talagalka iyagu yahay taa inaanu ka jawaabno fikirka iyaga dhiibno oo go'aanka Soomaaliya ay taagan tahay waxaanu mar walba taagan kuna adkaysanayna inaanan aqbalahayn wax ka badan 4 Noofambar in la kordhiyo. dowladda Kenya waxay codsatay 12 bilood waxay ku sababeynayso iyo sababaha ay cuskanaysaa wax iyadoo yaala kiisku waxa uu ku jiraa maxkamadda qaab socod ahaan iyo nuxur ahaanba in aan wax ka sheegno ma aha annaga fikirkayagii dowladda aan isla wada ogni dowladuna ogtahay waa cad yahay waa la wadaagnay maxkamadda isagoo qoraala iyo isagoo dood ahba waa dhiibanay waa inaan mar walba ka jawaabnaa dalabka ay maxkamaddu ina dalbato. annaga haddaan nahay dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenyaba waxa u yeedhay maxkamadda adduunka si labada dhinacba ay u dhageysato. waxay ku bilowday dhageysiga dhinaca Kenya iyo wafdigoodii iyo sharciyaqaanadkii dowladda Kenya oo doodii ay keeneen. haddana waxaan la siiyay annaga inaan ka jawaabno jawaabteedu waa gudbinay doodeedu waa gudbinay. waxaan markaa ka dhursugaynaa maxaa ka soo bixi doona maxkamadda. annagu waxaan aaminsanahay mar walba inaan taaganahay 4 Noofambar waqti ku filan oo dhinac walba isku diyaarin karo. maxkamadda ICJ ayaa u yeertay wadamada Soomaaliya iyo Kenya iyada oo maanta dhageysatay wakiiladii ka kala socday dalalka Soomaaliya iyo Kenya. waxaana laga sugayaa maxkamadda ICJ inay go'aan ka soo saarto xilliga la dhageysanayo dacwadda badda oo ay muranka gelisay dowladda Kenya. عمر محمد صوماني Universal TV مقدشو.